saddex ha isku dayin, saddexna haba ku darin, saddexna ha u dayma la'aan. Socod ha isku dayin, mid habeennimana haba ku darin, dantaadu meeshii ku jirtana ha u dayma la'aan. Guur ha isku dayin, habarna haba ku darin. Gabar yarna ha u dayma la'aan. waxaynaan ogeyn iyo afaare waaweyn baa meesha ku jira yaan lafaha laydinka miiran. Warkaygu waa ku dhacay Soomaa. weligay ma arag caruusaa loo hagranayo. war subscribe-ta YouTube-ka noogu keena aan aroosnay. حبيبي isdeji shacabku waa shacabkaagii. nagay Facebook xuna waxba ka soo bixin sida banki caraafa noo dhex dhoobanayaan. Soomaalidan daya idinku noo. Assalamu alaykum. Welcome to Islam Bros. qadarin baan idin hayaa qudhaydaad ku weyntihiin. waxaan nahay qoys mide adoon qumanahaaga dhigin duruufu qaloocsamayn. qoortana isu keen surayn, qaxwaha ma inoo shubaa. saaxiibayaal, walaalayaal, bulshada qaaliga ah ee Soomaaliyeed ee ku xiran Isfahan Brosom, salaanta islaamkaan idinku salaamaya. mid saaxiibtinimo, mid walaalnimo, mid soomaalinimo oo qalbiga ka soo gooday. meel kastoo aad joogtaan ilaahay waxaan idinka rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan, barwaaqaysan tihiin. arrintuna waxa weeye halkii aan idinku ogaa ay idinka sii horumarsan tahay. maasha allah, saakayta waxaan idinku talagalay inaan idinla wadaago mahmaahyo kooban oo aan isleeyahay waxa weeye waa mahmaahyada dadkii hore oo dhaqanka iyo ku wanaagsanaa waxa weeye mustaqbalka iyo waxa soo socda iyo waxyaabo badan istusi jiray ama ka fakarka badnaa kuwa hadda jooga. waana mahmaayaha ku saabsan maalin kasta nolosheena caadiga ah lana falgelaya waxyaabaha aynu samaynayno. marka saaxiibayaal, inta badan dadka kan baan jeclahay inaan barnaamijyadooda ka soo sameeyo mahmaahyo iyo murti wixii aan ka awoodo. kuwanina waxa ay noqon doonaan kuwa aad kaga faa'iidaysataan sidii aad ugu maarayn lahaydeen noloshiina maalinlaha ah ama midda idinla kulanta mar kasta. saddex ha isku dayin, saddexna haba ku darin, saddexna ha u dayma la'aan. socod ha isku dayin, mid habeennimana haba ku darin, dantaadu meeshii ku jirtana ha u dayma la'aan. guur ha isku dayin, habarna haba ku darin, gabar yarna ha u dayma la'aan. dagaal ha isku dayin, mid sokeeyana haba ku darin, jihaadna ha u dayma la'aan. saddex waa gar, saddexna waa gardarro, saddexna waa galabsigeed. in gabar gayaankeed ku weydiisto waa gar, inaad u diidaana waa gardarro, inay kugu gumowdaana waa galabsigeed. in tolkaa wax ku siiyo waa gar, nin bakhayla inaad baridana waa gardarro, inuu ku qadiyaana waa galabsigeed. inuu reer ku guuro waa gar, inuu sahan la'aan guuraana waa gardarro, inuu guri xundegaana waa galabsigeed. dadka kakan markaan kugu leeyahay waxaan ula jeedaa dhallinyarada macnaha run ahaantii raba inay tag wax u kala gooyaan sida dhaqsaha ah, gaar ahaan marka ay noqoto xagga guurka oo kale. waxyaabaha aan ka soo gaarnay dadkeennii hore ama dhaqankeennii wanaagsan ah ama mahmaahayaha waxay ahaayeen si kastoo loo dhigaba saddexda tan dumarka ayaa ugu wanaagsan. saddexda tan waxaa la yidhi dumarka kuwa ugu wanaagsan weeye xagga raggooda marka la fiiriyo. saddexdu waxaa weeye midda koowaad ama qodobka koowaad oo dumarka wanaagooda mid lagu dooranayo waxaa la yidhi waa hamba kugu celisa. qodobka labaad oo aad ku dooran kartidna waa hadalkaa maqla. qodobka saddexaad oo aad kusii dooran kartidna waa hanti kuu dhaqa. okay, hamba kugu celisa marka la yidhaahdo run ahaantii anigu dee sidaasba macno weyn ugumaana sii qaadanaynin, laakiin nin aan saaxiibo nahay baan maalin dhexdaasa sheekaysanaynay. kabacdina qof buu la hadlayay, wuxuu igu yidhi qofkaan hadda la hadlayay qofaan aada u jeclahay weeye run ahaantii, oo sheeko jacayla keliya naga dhaxaysa, isku waddanna ma joogno, hadda waddan kaley joogtaa. markaas waxaan ku yidhi run ahaantii ma aad baa u jeceshahay saaxiib? markaasuu igu yidhi hayo nin yahow, qoftaasi waxay hubisaa xagga cuntadayda inaan si fiican wax u cunay bay xaqiijisaa buu yidhi, sababtoo ah anigu waxaan ku xumahay xagga cunto cunista. marka hamba kugu celiyo dabcan dee haddaadan marka horeeto si fiican u cuntaynin way xaqiijinaysaa inaad calooshaada maaragtay. ilaa ninku waxaa la yidhi intuu cunuu ciidamiyaaye
inay calooshaada si fiican wax ugu dhaceen way xaqiijinaysaa markaa wahanba kuga celisa waxaagii aad iska soo reebtay ama nafaqadii aad ka tagtay dee kuula soo noqonaysaa waxay ku leedahay isnoolee saaxiibkayow dee labadan kale macnayn uma baahno dabcan qof kasta waa u fahmi karaa leefal kasta oo af soomaaliga ka joogo oo waa hadalkaa maqla oo dee xaajiyadu hadalkaaga haddii ay maqasho waxa weeye dumarka tan ugu fiican bay ka mid tahay mid kasta oo xaajigeeda maqashana waato alla sharfay wayna wanaagsan yihiin dumarka xaajigooda maqla maasha allah dee hanti ku dhaqana waxaa weeye uma baahna macnayn oo waa kelmad rasmi ah waanad fahmi kartaan dhammaantiin waa qofta markasta horumarinaysa reerkeeda iyadoo aan waxba kala qaadayno si isku duwan nolosha u wajahaysa markasta marakanna walaalay ama walaalow adiga ayaan kula hadlayaa imaqal 3 daacad hamoodin dagaal ooga qabiil deeq shisheeye iyo dumar dhool cadayntood run ahaantii dagaal ooga qabiil daacad hamoodin bulshada Soomaaliyeed arrintan inta badan waa ay ku sirmaan waana waxa dalkeena burburiyay deeq shisheeyana daacad hamoodin oo waxa weeye gacmaha in la hoorsada waa wax fudud wax yar in lagu dhibo aan qiimo lahaynna waa wax fudud laakiin maslaxadaadii iyo masiirkaagii inaad ku weydidna waa hoostii ugu jirtaa ee la soco oo waxa weeye deeq shisheeye daacad hamoodin dumar dhoola cadayntood haweenku waa naxariis badan yihiin khayr allaha siiya in badan bay nolosheenna iyo hadalkeenna iyo kelmadaheenna iyo mahmahayaha iyo taariikhda Soomaaliga ku soo noqonayaan waa dad aad u wanaagsan oo sharaf badan way naxariis badan yihiin naxariista iyo qosolka iyo dhoola cadayntuna waa isla socdaan marka hadday ku ilka cadeeyaan saaxiib hamoodin halkan ha gashan saaxiib weli hubso marka dumar dhoola cadayntood hamoodin adiga inay kugu wajahan tahay ee dumar dhoola cadayntood daacad hamoodin 3 waa mugdi 3 waa umiciin 3 waa ka macaan 3na waxba uga dan ma aha abaar waa mugdi cawsna waa umiciin doogna waa ka macaan ninaan xoolo lahaynna waxba uga dan ma aha colaad waa mugdi erga waa umiciin nabad baa ka macaan nin dhintayna waxba uga dan ma aha habeen waa mugdi cadda waa umiciin maalin baa ka macaan indhoolana waxba uga dan ma aha saaxiibayaal waan jeclahay inaan idin soo gaarsiiyo markasta af Soomaaligii waayo mahmaahiyihii dhaxalgalka ahaa run ahaantii waxaan rajaynayaa haddaan ku dhaadan lahayn afkeena wanaagsan iyo tusaalayaasha dhiirigelinta iyo waxyaabaha kala duwan oo uu bixinayo inaynan khaladyo waaweyn oo aan ku jirno oo ay ka mid tahay qabyaaladda iyo burburka dalkeena aynan ku milaneen run ahaantii waxaan isku dayayaa inaan idinla qaato markasta waqti wanaagsan waqti farxadeed insha Allah taala وانا سيدي اي ايغو قبطو ان هدو الله يدمو قولي قوانيما ايدين رجينيا وحبيب شكيتي وايدين له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسا سعودن بوناك سنوحي سلام لك سي سبسكرايب